halkani waa magaalada caasimadda ee Hargeysa cawiisi kanina waa mid ka duwan kuwii hore loogu qaban jiray waxaanay gaar u ahayd dadka isjecel iyo lamaanayaasha nolosha ku midoobay ee ku nool magaaladani Hargeysa lamaanayaal tiro badan iyo dhalinyaro kale oo boqolaal ah ayaa madasha si toos ah ugu caweynayay oo jiibta iyo taanta isla qaadayay fanaaniin qaadaya heeso kuwii hore iyo kuwii dambe iskugu jira ayaa iyaguna ku madadaalinayay dhalinyarada madashan ka soo qayb galay heesa ay ka mid ahaayeen mug iyo jacayl waa maxay iyo qaar kale munaasabadani oo u gaar ahayd bandhiga buug loogu magac daray hadiyadda jacaylka ayaa lamaanayaashii goobta ku sugnaa qaarkood waxay si toos ah iskugu guddoonsiiyeen buuggani midabkiisu yahay casaanka qaarkoodna heesa ayay ku cabirayeen dareenkooda markan ku helan dawo hantiga dujisay ilaah dambigaaga dhaaf dambigaaga ilaah dambigaaga dhaaf midda jisay dayday dagmo ciidan kula simaamiyay dunidaba jirtay qoraaga buugga hadiyad jacayl cabdisamed awdaahir ismaaciil oo aan waraysanay bandhiga kadib ayaan weydiinay sababta keentay xilligan inuu qoro buuggani runtii buugga waxa la dhahaa hadiyad jacayl ujeedada ugu weyn waxa weeyaan buuggaas inuu jacaylka si dhammaystiran oo qoto dheer ugu qeexo sidoo kalena ay dadku kaga maarmaan ubaxeeya kaadoogii wixii ay sasin lahaayeen oo ay buugga akhristaan kuna tamariyaan waa kaas ujeedada ugu weyn balka warasay munaasabadu u qabsantay yaa ka soo qayb galay runtii munaasabada waxay qabsantay si fiican oo aanan marka hore filanayn runtii aad baan ugu farxay waxa ka soo qayb galay oo u badnaayeen dadku lamaanayaal dadka mufridkii ama lamaana ahayn aad bay ugu yaraayeen runtii waxay ahayd madal la isku arkay oo ay dadku jacaylkooda si bareer isugu sheeganayeen intaasi kadib afhaafka hore ee hoolka munaasabadu ka socotay ayaa uu TV-ga Universal waraysiyo kala duwan kaga qaaday lamaanayaasha buuggan hadiyad jacayl isku maamusay oo uu ka mid ahaa Maxamuud Boodhari oo ahaa ninkii isaga iyo jacaylkiisu iska daba tahriibeen kadibna isguursadeen iyo fanaanka caanka ah ee wadna kaabe oo xaaskiisa hees iyo buugga hadiyad jacayl ku guddoonsiiyay munaasabada dhexdeeda waxaanay sheegeen dhammaan lamaanayaashani in caweysankani uu ahaa mid aan hore loo arag oo ka duwan kuwii hore ay uga qayb geli jireen qoraaga buuggana aad baan ugu mahad celinaya maadaama jacaylka soo nooleynayo anugu waxaanay dadka jacayl in loo doodo dadka iyo jacaylka xuquuqda jacaylka aad adigana waa kuu soo dhaweyn madashana oo madal qaaliya jacaylkii in la dhiirigelinayo oo waxaan oo aragna halkaa imika haddii ay ku jirto muhiimad badan oo noloshii maadaama uu ka mid yahay dee aynu halkaa ka arki karno sawjadeediiba halkan la taagan oon aad u jecelahay nacayb tira maxamed dareenkayga lama soo koobi karo caawan faraxsanahay kolley dhiirigelin badan ayaanu ka helnay buugga quruxda badan ee hadiyad jacayl hooridayda oo aan qabo 9 sano oo ilaa 4 caruura oo mar walba iyada aan ugu yaro yaa maxamed yaa zakariya يا مليكة يا يحيى وافرت عرّي أريد حاسك غاير شيء دور هديدود وان قدوسية لكن وحيد الناون إن هلبو قدوسية بو قاس الله ما قاعد بحي هدية عائلة نصيبنا ونو يا شيء مشرح حق وروح لبدن له إنك قدوسية حاسك كان آتك وجعل هاي قراغنا ويسعى هاي مركاني قدرين كيجو عاوة and I can't express in words إريك مسو كوبي كرو and أد بانو فرح سناي صوبتوا waxa weeyaan Soomaalideenu had iyo jeer inta ugu badan ma taqaano weeyga iyo qaabka guriga loo dhaqo marka aniga dareenkaygu inta weeyaan caawa waxaan kamid ahaa ma sha Allah 10 qoys la soo guddoonsiyo intaan laga iibin ka hor alxamdulillah rabbil caalamiin runtii anaguna aad baan uga guddoonay xafladan ka soo qayb galanay aad baan ugu faraxsanay sababtoo ah xafladu waxay macna samaysaa marka dad kula baashaalo kula faraxsan aadaysid runtii waa buugi ugu farxadda badnaan ka qayb galo maadaama ku turjumay ama ka hadlaya magaca lamaanaha ama jacaylka runtii waxaan aaminsanahay inaan ahay lamaanihii ugu jacaylka badnaa muddo badan soo sheegsanay muddo 9 sano alxamdulillah sanadka dabeeqadiisa inuu ilaahay igu guuleeyay aniga maroodayda munaasabada buuggan lagu soo bandhigay ayaa ku soo gabagabowday hab jawi degan ah waa Idris Bershiya
telefishinka universal hargeysa.